بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل برنامج كان دقالها يجنع سجى تضبط كنا برنامج كان دقالها يجنع سجى وحنا قصة مرتقى عند محمد حسين آدن أو أول دائر إسلام كاسنا من دقاريه هنا وحنا شعلها يبل لرجلتها دين عدليرتها إن برنامج كان أين قصة قاضنا قصة دو محمد برنامج كان دقالها يجنع سجى وبانسنت ولا الحسن هذه أيضا مدوّر. بالمحمد واحد كورنتها مركو هوريسي مركي ka soo baxday secondary-ga markaan ku hadalno sooyaalkaagii taariikheed waxbarashada secondary-ga markaad ka soo baxday inta waxaad kulli ku haymiisay inaad wax diyaariso oo jaamacadda diyaariso waxyaabihii markaa aad ku fikiraysay maxaa kamid ah loo karaya wal waxa horta markii horeba hobigaydu ahaa inaan barto cilmiga dhaqaalaha markaan secondary-ga ka baxay waxaan jaamacadda Hargeysa ka bilaabay fakalka dhaqaalaha 2012 yes waxaan ka qalin jabiyay 2015 marka maxaad ku dooratay maadadan dhaqaalaha waxaan ku doortay runtii waa field very important oo runtii u wanaagsan wadamada soo koreeya in dad dhaqaaliyahana wadamadooda develop gareeyo oo dhaqaalaha ka dhiso oo dhinacyo badan runtii ka dhisa marka la eegayo dhaqaaluhu waa fiilka generate gareeya in dhaqaalaha la kobciyo haday tahay xagga wax soo saarka agricultural sector-ka haday tahay industrial-ka marka dhaqaaluhu sidoo kale waxaan kale ku sii doortay runtii waa fiil hobby siyaasadeed baan leeyahay marka mustaqbalka runtii iga caawin kara marka hobby siyaasadeed maxaad uga jeedaa halka waxaan uga jeedaa runtii inaan mustaqbalka wadankeeda ka noqdo hogaamiye runtii dhaqaalihiisa wax badan ka qabta waan gartay waad ka soo gudubtay laga yaabo markaa 2015 sida sheegtay ayaad dhameysay jaamacadda Hargeysa ka baxday maxaad uga sii gudubtay waxaan uga sii gudbay horta waxbarashadeedii ma sii watay marka 2015 markii aan qalin jabiyay dabeeqadii 2016 ayaan u gudbay haddana wadanka Bangladesh halka waxaan ka bilaabay Master of Economics jaamacadda la yiraahdo Asian University of Bangladesh iyadana waxaan soo gabagabeeyay 2017kii iyadoo waliba aan garab waday jaamacad kale oo iyadana la yiraahdo University of South Asia oo iyadana aan ka waday master kale oo la yiraahdo Banking Management marka waxaan soo gabagabeeyay iyadana September 2018 marka wadanka imika waxaan joogaa ku dhawaad loo bilo dhawaad joogtaa كل مستر فكان بيجي يتصاد يرسل بنجلاديش استاذ مكبار شكتي أنت أنا هرجسك بحين جامعة هرجسان كبحضي بالواحد كورتها إن وحيابها الأوران كريه رنتي سامين بيكوية عشان مركز جامعة دراسي محل سويدين سأرمى بدن باكل اللي جاي بقى إن كفكري سوكله هدين نقول له هاد سيد أما شقة أدو بلا بالهيد أما سيد أدو حبرشة هذا رنتي أدو سكر دين هيد إن وحيابه مركز سويا لكي الله صامرتي وقت ياسم محل الأوران كريه wal horta qofku dhalinyarada markuu soo qalin jabiyo iyo intaanu qalin jabin horta wuxuu isku dayaa shaqadaas wadankeena horta aad u adag tahay marka in si fudud qofku marka shaqo ku helo marka horta shaqo waan raadiyay way jiraan meelada maxaan ku dhahdaayay seminar iyo waxyaabo aan galay marka shaqo permanent job oo rasmi oo aan sii wadi karo oo aan ku qanci karo tacliinteedii aan ku sii joojin karo maan helin markii aan arkay shaqada wadanku say tahay waxaan aad iyo aad runtii u doorbiday inaan waxbarashada sii wato marka waxbarashadeeda marka kulli dalka joogta la oran karayo dalkaaga hayn maxamedow sax بالخبر مركا وحبرشيدا أما مركا لقى هذا يوكله نلوشي ذا كله مركا لقى هذا يوكله يو وحبرشدي يصير الله سوى فتشين كريه يبغى أروح كريه ما صورن والله حسن وهرتها نرال وضن كلام مركز بيلودي وقف سكاكو بتشوفهم بعض كنتي وانا نرال أدق أو قف أدق ما كسب بحكرة وايو وحيابها آد كلياب كولا كلكم بيو حكم إذا تبلشك هذا كنتوين محن كره هذا كلايمت كادوين waddanka kulula oo temperature-kiisu aad u sareeyay waxa kamida waddanka waa waddan runtii biyo ku badan yihiin oo kanacadu aad ugu badan tahay waxa kamida jaamacad aad u fara badan oo marka tusaale ahaan oo kale jaamacadii aad tagaysid aad kala kulmaysid laga yaabo jaamacadaada 3 hours iyadoo adigoo 30 daqiiqo ku tagi kara in 3 saacadood iyadoo sii socotid jaamka awgeed waxa kale oo kamida runtii dadka Asiaanku oo runtii dad nolol adag soo korayo oo aan xariis badnayn marka waa arrin runtii aad u adag waxa kale oo kamid ah qofku isagoo wadanka markuu joogo aan waxba karin jirin inuu wax karsatay marka runtii nolol cajiib ah waa gartay
كل وجهات كله هذا وحبرشة هذا إن تكجدو ومركزي أتكجد بيسو runtii ujeedadu waa ka gaadhaa la oran karaya in waxyaabahaas leedahay dalkan maadaama ay tahay nidaamka master sita waxyaabahaas leedahay dalkan ku soo kordhi oo waxa kaga qaba dhinaca dhaqaalaha kale in maxaa bal ka waran iyaga horta runtii qofka dhaqaaliyahan ku hadiyo jeer waa qof aragti dheer oo aad iyo aad runtii u arka xaaladda dhaqaale wadankiisu taagan yahay xaaladda dhaqaale bulshadiisu ku jirto iyo mustaqbalka xagga looga digargoon karo xaaladda lagu jiro marka runtii aniga waxyaabaha ay qorshaysan waxa weeyaan runtii in sektarada dhaqaalaha uu ka kori karo in runtii aan consultant ka siiyo dawladda iyo private sectorka labadaba waa goolskeeda runtii ugu waaweyn marka sektarada ha waayo qofka dhaqaaliyahan ku hadiyo jeer waa inuu generate gareeyo uu keeno talooyin wanaagsan oo runtii wadanka dhaqaalihiisu ku kori karo marka waxay qorshaysan runtii inaan kala taliyo sektarada dawladda ee marka maxaa la oran karaa waxyaabahaasi marka aad niyadda ku haysaad leedahay kale dalkii dhaqaalihiisa oo kale wax ku soo kordhi maxaa la oran karaa waxa ka mid ah runtii in la xoojiyo waxaan loo yaqaano industrial sectorka waliba bulshada yaryar tusaale kale marka wadankeenu waxyaabo yar waxa jira adduunka marka la soo saaray fududahay sida marka baashan tusaale tomaatado kale de warshad ma lihin dabadii nooga soo degtaa waxyaabaha kale ee la oran karo runtii wadanka waa lagu soo kordhin karaa waxa kamid ah industrial warshadaha soo saara caanaha runtii inkastoo jiraan haddana way yar yihiin mid iyo laba way jiraan baan filayaa laakiin haddana weli dee may buuxin baahidii bulshada marka runtii dadka had iyo jeer door bidaya inay warshada aasaasaan in runtii ka siiyo talo ay ku aasaasi karaan oo runtii warshadaasi si ay u dhaqaaqdo halkii lagu talagalayna uu gaadho bulshada in ay wax soo saarkii la gaarsiiyo wixii dabadda ka imanayay lacagteenu ay ku baxasay la soo siinayeen in runtii la yareeyo oo lacagtii wadanka ay ku nagaado oo wixii maadaama inuu nahay wadan backbone-kiisa ama lafdhabartiisa dhaqaale ay tahay xoolaha haddana inaan caan la soo degno runtii waxyaabaha aad kala yaab ku leh marka qofku markuu ama wadanku uu sources haysto sourceska isagoo haysta inuu dabadda kala soo dego haddana dhaqaale ahaan oo mana fiicna marka arrimaha noocaas aan doonayaa runtii in dadka door bidaya dhaqaale u haya inaan aniguna taladeeda ku biiriyo marka laga hadlayo kulli kaabayaasha dhaqaale ee dalku ka kooban yahay waa sidaas sheegto xoolaha inoo kooba waxyaabaha kale aad oran karayso runtii marka caanaha laga yimaado ama horumar bay ka gaareen bal oran karayo dhinacii dhaqaalaha ee Soomaaliland oo kale iyaga qudhooda koobaala tilmaami karaya wallahi marka laga hadlayo wax soo saarka wadanka runtii waxyaabo waaweyn oo la taabto oo la yiraahdo wadanka gudihiisa ayay ka soo baxaan waxa la oran karo horta waxaan loo yaqaano biyaha filterka kale runtii wadanka dibadda laga keeno iyo shirkaddan iminka SBI-da Coca-Cola oo iyaduna soo saarta sharaabkii aynu dibadda ka keeni jirnay oo ka saartay sharaabkii dibadda ka soo degi jiray intiisa badan wax meelaha aynu guulaha ka gaadhna weeyaan runtii waxa kaloo jiray iminka bilaabmay oo ah runtii in dawladdu ay focus ka saarto sidii wax soo saarka beeraha loo xoojin lahaa markii hore wax waynu la soo bixi jirnay laakiin wax dadka ku filan oo kafeeye wadanka muu ahayn welina kuma dhawin laakiin dawladda cusub waxa bilowday bilow cusub oo ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga qodhiisa heer inta leeyahay maanta ka taagan baa la oran karaa qodhiisa ganacsiga runtii horta Soomaalidu aad bay ugu fiican tahay si natural iyo dabiici ah marka ganacsiga runtii si fiican buu socdaa laakiin wuxuu u baahan yahay in la kala xadeeyo oo dadka wholesalers-ku runtii dadka retailers-ka ilaaliyaan dadka julmadlayaasha ee soo dejiya si loo sii kala faa'iido oo qofka ka sii iibsanaya markuu wixii iibinayo qofka kale ka sii iibsanaya oo isaguna uga faa'iido in ganacsiga la kala xadeeyo ayaa horta aad iyo aad lagu baahan yahay marka laga hadlayo kala xadeynta hadda sidaan ku sii socoto kale in waxyaabaha runtii ay keeni karto ama saameyn ku yeelan karto qudheedina iyaga miyana aan la oran karin dib bay keeni kartaa kala xadeyntan oo kale kala xadeyntu waxaan dib u keenin waxa jira dad wixii keena haddana shaygii markuu keeno ee ganacsigii uu keeno magaalooyinkii waaweynaa haddana isagu si tafaariiq u siibiya qofkii marka ka sii iibsanayo waxa ma faa'iido waayo kii ka soo iibiyay ba tafaariiq aan ku sii iibinaya marka waxyaabaha noocaas waxa weeyaan qofku markuu isagu yahay qof
wholesaler ama alaabtaba soo dejiya waa inuu isagu ku ekaado hangiradiisa iyo dekada markaa uu alaabtii keenay in halkaa lagaga soo iibsado kabacdi qoladii kasii iibsatay inay iyaguna kasii iibiyaan meelihii yaraaye kale qoladaa markaa loo daayo iyaguna de waxayna sii tafariiqeeyaan markaa kala xadayntu adduunka wax jira oo wax sharciya waana wax runtii inaga maqan waayo ninkii alaabta soo dejiya hadduu isaguna tafaariiq usii iibiyo kii kasii iibsaday ee dukaanka yar lahaa waxba kama faa'iidayo marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah runtii wasaaradda ganacsiguna ay tahay inay arrintaa degdeg u gasho marka laga hadlayo kale ganacsigeena oo kale marka laga hadlayo waxyaabaha inta badan bulshadeena ka ganacsato waxyaabaha la oran karayo runtii way u badan yihiin maxaa iyagana qudhooda ka mid ah la oran karayo wallaahi runtii de waxyaabaha bulshadeenu ka ganacsato waxaa ka mid ah boqolkiiba horta 90 waxbaynu la soo degnaa waxaanu nahay wadamada runtii wax soo saarkoodu aad ku yar yahay dee waxaanu cunno oo dhan haddii raashin tahay waynu la soo degnaa runtii waxay ahayd inaynu dee yeerli dawladdu ay bilaan ka yeelato oo la yareeyo ganacsada laftarkeeda in iyaga laftarkooda loo dejiyo qorshe ah in wadanka gudihiisa ay wax ka soo saaraan si loo dhimo cunnada aynu la soo degano wax sidee wadanka dhaqaalihiisu u kabo waxyaabaha kale in la soo degno waxaa ka mid ah dee material of building imika oo kale sibid baynu leenahay oo dee berbere area waa meel sibid laga soo saari karo waxaana inoo yimaada sibirka Ethiopia runtii marka adigoo sourceska noocaas haysta in haddana wadan kale oo jaarkaada sibir ka soo qaadatay dee dhaqaalaheena bay wiiqasa waana mid aynu u baahannahay runtii inaynu qorshe ka yeelano oo sidii loo kicin lahaa warshada sibirka ee berbera aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxyaabaha la oran karayo dhinaca dhaqaalaha markaan dib ugu soo noqono caqabadaha ugu badan ee maanta in haysta maxay ugu dhowda la oran karayaa caqabadaha ayna haysto horta waxa ka mid ah ugu waaweyn waxa ka weeyaan in marka koowaad wax soo saarkeenu liito waayo dhaqaaluhu wuxuu ka koraa waxa weeyaan wadanku inuu wax soo saaro agricultural sectorkiisu inuu xoogan yahay waa meelaha adduunka istabka koowaad ee wadan dhaqaalihiisu ka koraa waa wax soo saarka beeraha istabka labaad ee loo gudbaa waxa weeyaan waa industrial sectorka in warshadleyda la xoojiyo marka wixii la soo saaray in warshad loo helo waayo mararka qaar dee wixii la soo saaray sidiisa lagu isticmaali karo marka koowaad waa inaynu xoojino beeraha especially weliba aan waxaan odhan lahaa wadada loo marayaa yaanay noqon waddo dawladdu ay beerto laakiin dawladdu waa inay support garayso dadka beeraha yaqaana ee beeraha beera oo iyaga skillkooda kor loo qaado dawladdu markaa iyaga ay subsidy ku samayso kasi kor lagu qaadaya waxa ka mid ah in dadka beeraha had iyo jeer ka ganacsada in iyaga tababar fiican la siiyo oo beertii aqoon ay u yeeshaan in climate-kooda la baro ama cimiladooda la baro sidoo kalena in la siiyo siir ku haboon waqtiga ay beerayaan ku haboon in waqtiga uu cimilada ku bixi karo waxa kaloo ka mid ah in dadka xilliga wax beerayaan ee de waaxda wasaaradda beeraha saadaasha hawadu ay u sheegto roobka da'aya iyo inuu seedkan ku bixi kara iyo waxaas oo dhan waa in laga support gareeyo waxa kale oo laga support gareyn karaa wadankeena laga taageeri karaa shidaalku waa qaali marka qofku markuu isagu beerayo dee qofkii xataa cagafta wati dee waxa laga yaabaa inuu qiimihiisu adag yahay oo qofkiina aanu awoodi karin marka dawladdu inay dee ku taageerto waxaan wax lagu beero sida cagafyada oo kale inay dawladdu dee ku taageerto si wax soo saarkii dadkaasina ay ugu dhiiradaan taas waa mid sidoo kale in wacyigelin bulshada la siiyo in bulshadana ay isku filnaato wadankeeda ay wax kala soo baxdo waxa ka soo baxayna ummadaas ay isticmaasho oo ay cunto wixii warshad u baahanna warshada loo keeno kabacdina iyadoo la process gareeyay ama la habeeyay bulshada dib loogu celiyo bulshada iibsato oo waxyaabaha uu dhaqaaluhu aad ugu kori karo waxyaabaha kale dhaqaalaha wadankeena korin kara waxa ka mid ah in iyaga laftarkooda xoolaha wax badan laga bedelo sidii hore loo dhaqi jiray waayo climate-kii adduunka ama cimiladu way isbedeshay roobkii way yaraadeen dhulkii xaalafaa ku dhacay oo deforestation wax la yiraahdo ayaa ku dhacay marka waxaas wuxuu u baahan yahay in runtii nidaamkii hore xoolaha loo dhaqayay in laga bedelo ama inta meel lagu xareeyo calaf halka lagu siiyo ama aynu dee garaasi sameeyno oo dhulka calaf lagu beero xoolihii marka haddii la yiraahdo sidii hore ee naturalka ahayd dabiiciga ahayd ba xoolihii loo dhaqaya waxaanu garan karnaa sanadkan ma aha 3 sano hore wadanka abaar adag baa ka dhacay marka abaarahaasi xoolihii dhibaato badan ayay u geysteen marka waxyaabahaas waa inay ina tusaan inaynu ruudkii hore ee xoolaha aynu ku dhaqan jirnay ama hanaankii hore ee xoolaha ku dhaqan jirnay inaynu isbedel ku sameeyno oo laga bedelo habkii hore loo dhaqay xoolaha
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed xuseen aadan oo ah double master isla markaasina barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday iyadoo aanu ka hadlaynay guud ahaanba dhaqaalaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhiirigelinta dhinaca dhalinyarada dhinaca runtii aqoontooda isla markaasi sidii ay bulshada ugu faa'iideyn lahaayeen aan ku soo marti qaaday barnaamijkan aad baad mahadsantahay maxamed